arday barata xirfadaha wax soo saarka gacanta ayaa Muqdisho ku soo bandhigay waji xir ama face mask loo isticmaalo in looga hortago cudurrada ku faafa neefta sida coronavirus oo farabadan ku haya dunida iminka. Muuse Cismaan Abto ayaa si anba qaadaya warkan. ayadoo cabsi weyn laga qabo in uu kordho faafidda cudurka COVID-19 coronavirus ayaa maamulka macadka Hano Academy iyo ardayda macadka Hano Academy waxay soo saareen ku dhawaad 3,000 oo ah waji xirka oo neef kala qaadashada la isaga difaaco oo ah face mask kaasi oo ka duwan kuwa dalka hadda laga isticmaalo maadaama uu ka samaysan yahay maryo adag iyo filter oo qeyween ka qaadanaya ka hortagga faafidda cudurka coronavirus. waxayna ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan yareynta faafidda cudurka coronavirus. maamulka macadka Hano Academy Dictoraysa Saadiya Cabdullaahi Siyaad muhiimadda face maskarada uu leeyahay iyo doorka uu ka qaadanayo ka hortagga faafidda cudurka coronavirus. face maskiga aan ku soo saarno macadka Hano Academy ee magaalada Muqdisho wuxuu hatar run ahaantii kaalin weyn ka qaadanayaa in uu yareeyo faafka cudurkan coronavirus. waxa kale oo run ahaantii shaqo abuur u yahay dhalinyaradii iyo dadkii qaxootiga dib loo soo celshay iyo dadkii kale todo barakacyaasha ahaayeen. so economiga wadanka dhaqaalihiisa laftigiisa kor ayuu u qaadayaa. waxa kale oo muhiim ah oo inay fahansan yihiin dadkeena waxyaabaha markuu wadanka isku dhiirado oo wax soo saar uu leeyahay dadka laftigooda hawo way yeelanayaan horumarka ayay ka qayb qaadanayaan. dadka tiimka hadda ila shaqeeyo wuxuu qof kastaba uu aaminsan yahay shaqada yarta oo suubinayo in uu run ahaantii kaalin weyn oo ka qaadanayo la dagaalanka cudurka coronavirus. maamulaha macadka Hano Academy Dictoraysa Saadiya Cabdullaahi Siyaad ayaa sidoo kale ka hadashay tirada guud ay soo saarayaan maalintii hadda waxaan soo saarnaa ilaa 3,000 ilaa 2,000 ayaan u dhaxaynaa ka badan laakiin waan jecelnahay inaan soo saarno haddii aan helno dalabaadkii. waxaan ugu baaqi lahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ay naftooda ka taxadiraan nafka walaalkoodna u taxadiraan sababtoo ah cudurkan waa cudur dilaa ah dadku ku dhaco badankood way ka kabsadaan laakiin dad badan ayaa ku dhintaan. soo waa inay ka fikiraan kana foojignaadaan dhibaatooyinka ay u keeni karto qof qabo inuu bulshadii dhex socdo. waa inuu qofka naftiisa ku taxadiraa oo gacmihiisa u dhaqaa oo xirtaa face mask. sidaad hadda u jeedinba face mask waa noo xiran yahay anagoo dhan waana muhiim qofka bini'aadamka ah in uu dadaalo. dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ururada bulshada rayidka ayaa wado dadaalo ay ku doonayaan inay ku yareeyaan ka hortagga faafidda cudurka viruska iyo saameynta uu ku yeelanayo bulshada. Muuse Cismaan Abto Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.